السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaad cashirkeennii koobaad ee ahaa bootstrap iyo barashadiisa cashirkeennii introductionka waxaan kaga soo hadalnay waxa uu yahay bootstrap qaabka loo downloadeeyo iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay cashirka kani project ayaan bilaabeynaa live ah oo aan ku sameynayno bootstrap marka waxaad sameynaysaa waxaad furaysaa your maxaa la dhihi jiray Visual Studio 2019 ayaad furanaysaa marka aad furtid insha allahu tacaala bootstrap 2019 sidan ayuu kugu soo bixi doonaa biidni illaahi calaykum asalaam waraxmat new project ay leedahay marka new project dhahid insha allahu tacaala waxaad tegaysaa ASP.NET web application ASP.NET core web application next ay leedahay projectiga magaciisu ayaad meesha ku qoraysaa waan soo baranay waxyaabahan marka waxba hadda ku noqon maayo bootstrap waxaad leedahay dash practice ka bacdi waxaad tegaysaa projectigii meesha uu yaalay folderkeeni caanka ahaa local disk bootstrap 2020 ayaad select dhahaysaa wuu kuu dooranayaa saad ku bootstrap 2020 then waxaad leedahay create iska sugaysaa wax yar waxaan dooranaynaa ASP.NET 3.0 web application MVC mar baad dooranaysaa dhinaca leftiga right-ka uncheck the configure for HTTPS then waxaad leedahay create wax yar baad sugaysaa insha allah kuu soo baxay projectigani dhinaca leftiga ama right-ka haddaad fiirisid practice ayaa soo baxay bootstrap practice iyo faylasheenii ama folderadani caanka www root oo la geliyo wax alla wixii CSS ah javascript iyo bootstrapka haddaan ka hadlaynay controllerkii oo ah folderkii back endigani modelkii oo database-keeni ah viewgii oo front endigii iyo HTML iyo wixii maarata dadku ay arkayena inta ayaa soo baxday kan xayeysiiska wejiga hore waa iska xidhaysaa calaamadaas x-kaad ku dhufanaysaa waxaan sameynayaa marka sawirro ayaan u baahannahay dhowr intaynan gelin sawirradaas waa loogo xor ayaa tahay waxaad geli kartaa google-ka loogo iyo sawirro aad leedahay baad soo download-gelisan kartaa emailna waan idinku soo dirayaa insha allahu tacaala waxa wixii sawiran hayo marka hadda waxaan sawirro aan diyaarsaday baan meesha iigu jeela si aan hadhow u isticmaalo laakiin qofkii aan cashirka la soconin isagu wuxuu samayn karaa dhib male any sawir uu YouTube kasoo helo ama Google ayuu aad u isticmaalayaa muhiim maaha inuu isku sawir aan isticmaalno so copy control image folder halkan ku samee www root-ka la yiraahdo image la yiraahdo enter baad leedahay right click baad leedahay and then paste maari sawirantayda dhan buu isoo galayaa ilaa dhowr xabo weeye slide show waxa dhan so qaabka u sameynayso haddii aan wax yar kaaga caawiyo waxaad sameynaysaa google-ka tegaysaa waxaad ku qoraysaa tusaale ahaan wixii slide show oo sawiraantan hadda ku qoran tahay slide I will show you kuwan ay ku qoran tahay slide 1 slide 2 gaas oo sawirro waaweyn ah waxaad gashaa splash waxaad ku qortaa free HD image sidaan ku qoro unsplash kana yaa soo baxay waxaad ku qortaa halkan software developer ku qoran then waa ku waxna sawirraa kusoo baxaya oo diyaar ku ah oo free ah kana waxaad ku dhufanaysaa right click baad leedahay waxaad leedahay save as image tusaale ahaan waxaad ku qoraysaa slider 1 oo kale ama magac ud bixinaysaa waan haystaa sidaas waxaan leeyahay test oo kale 1 aduu slider 1 u bixi basically then okay baad leedahay then intaa markaad samaysid
ta ku xigtaayo waa inaad tagtid pixlr.com oo ah website-ka lagu sameeyo lagu edit gareeyo sawirada. Open baad leedahay, marka open dhahdid waxaad leedahay yes oo kuu furayaa manage. Okay, kan oo ogolo baan leeyahay, waxaan xirayaa, waxaan leeyahay refresh, click here, click here. Continue with editor. Muxuu ahaa waa idiiday flashkan dib buu keenaa mararka qaar. So pixlr.com. yes allow dhe markaas oo kuu furmayaa sawirkii sidan kugu furmaya. waxaa leeyahay open, then sawirkii isaga habaad furaysaa, meeshaad gelaysa adaa garanaya. tusaale ahaan waxaan ku qoray de test 1 aan ku qoray garan maayo. Image yaan geliyay talow. kan oo kale aan iska dooranaya, dhib ma lahaba, hawa kuma jabna. So markuu sidan ku yahay sidan kugu soo baxo, wax kale ma sameynaysid, laba shay bisa sameynaysaa. kow dhinaca leftiga ah right-ka cafwan, halkan hadduu lag saaran yahay double click ku sii lagga uncheck dheh. image baad tegeysaa, image size calaamadan hoose uncheck baad leedahay, waxaad ka dhigaysaa 1920 hoosta hoosena waxaad ka dhigaysaa 700 ama 750 ka dhig. That's it. ilaa 4 sawir ama 3 sawir oo slider ah oo midkiiba uu yahay 920 dhererkiisu, balliciisuna uu yahay cafwan dhererkiisu uu yahay 750, balliciisuna uu yahay 1920 ayaad soo sameynaysaa, waadna save garaysanaysaa. kaas waa slider-ka. inta kale ee soo hadhay uma baahnid inaad tagto kan, waxaad u baahantay kaliya Google inaad ku qortid HTML icon oo kale inaad dhahdo, then aad ku dhufatid image, waxaanu HTML icon soo copy garayso, save garayso. waxaad dhahaysaa CSS icon, sidoo kale wakaas oo soo galayaa bootstrap icon wakaas soo galay. horaan u raadiyay soo waad garan aad arkaysaa. mid baad save garaysanaysaa. ASP.NET Core icon sidoo kale waad helaysaa. so sawirkii aad igu aragtid halkan aad kasoo helaysaa, waad save garaysanaysaa. marka waxaad gelinaysaa ood usoo tarxiilaysaa meeshan imageska. sida loo sameeyana, you right click the image, you can copy and paste sidaan sameeyay, or you right click and then say add and then existing item and then go to your images desktop meeshaad dhigatay and then select the videos or the image afwan. Okay, so intaas waa sawiraantii iyo inaan idin sheego maaragtay in aynu u baahan nahay in aan sawiraan website-keenu u baahan yahay. marka si aynu shaqadeena u bilowno insha allahu tacaala, kow waxaad tegaysaa www.root css site-ka furaysaa. markaa furtid hoos ayaad CSS-kan waa lagu qoray, website-ka ayuu la yimid, so waxba aad ka bedeli maysid. hoos ayaad aadaysaa kisto, waxaad raadinaysaa body-ga waa kan. body-ga kan ayaad dhowr shay ku daraynaa. marka margin-kan hadda uu wato bottom-ka ah ha iska ahaado, dhib ma laha. hoosteeda tegaysaa, waxaad ku daraysaa marka dhowrka shay baan hadda ku siinaya insha allahu tacaala. horaad CSS u qorteen, marka ku mashquuli maayo inaan hadda CSS idii qoro, maxaa yeelay casharada ma kasoo bixinay. marka intaasaad ku daraysaa background image hore usoo baratay. dot waxay ka micno tahay go to the www root. so go to www root image folderka la yidhaahdo kaasa, bg2 image sawirka la yidhaahdo bg2 image wakaa igu jira. hadduusan kugu jirin adigu sawir background image ah haddaan furo aan 2 jeer ku dhufto aan ku tuso qaabku egyahay, waa sidan. macnaha waa sawir noocan oo kale ah. marka background pattern. so haddaad Google tagtid, Google aad ku qortid pattern image
intaad ku qortid parent image kumanaan baa soo baxaya. So sawirkii background ee jeclaata ka dooro. Okay, then magaca laakiin c isku magac waa inaan noqono haddii kale kuma shaqeynayo. So pg-image.jpeg waa inuu kuu noqdaa. Okay, intaa markaad dhahdo save garee html css kan hadda site css ka iska xidh. Okay, good. intaa waad samaysay. waxaa kaloo hadda inoogu xiga laba shay oo kale oo muhiim ah si aynu cashirkan u bilaabano. So viewga tegaysaa, share folderka tegaysaa, layoutka tegaysaa. layoutka markaad tagtid, layoutka waxaa ku jira waxyaabo lagu diyaariyey oo diyaar iska ah. So waxaas oo dhan waynu tirtiraynaa maxaa yeelay innaga aan rabnaa inaan qorro oon barano. So insha allahu taala waxaad samaynaysaa baadhigan wixii ku jira gudihiisa oo dhan baad tirtiraysaa. So kan tir, kanna tir, furarkanna tir, calaamadda furarka hortiisaad tegaysaa. scriptigan kuwan ha taabanin wixii script iyo tan hoose render baadhiga ha taabanin. kuwa kore oo heerka kore oo ayaguna css kaadi iyo bootstrap ha taabanin. intaa kale ee ku jirta gudaha baadhigan oo scriptigana ka shisheeya baadhigan ka hooseeya intaas oo dhan baa isla cunaysaa hal mar. marka saas uu noqonaya websitekaadii cidlo waxba meesha kuma jiraan mana shaqeynaya haddii aad run garaysid. Okay, hadda websitekeeni waa eber waxba ku jira ma jiro. intan aan macnayno css kan css site.css ka waa midkii aad wax ku qoraysay waa lagu soo waxeeyey. sidaan hore u baranayba heerka kore waxaa la geliyaa wixii css ka, hoosana ee baadhigana waxaa la geliyaa wixii javascript ah. So innaga muhiimadda aan leenahay waa bootstrap. fileka la yidhaahdo lib.bootstrap.directory. so haddaan tagno www root oo marka aan tagno lib oo ah library oo marka aan tagno bootstrap waxaa arkaysaan library oo library waxyaaba badan baa ku jira. bootstrap, jQuery, don't worry about waxyaabahan kale cashiro kale aanu ku qaadan doona markaan javascript iyo jQuery gaarno. bootstrap baa haddana huran ka markaad tagto distribution folderka dist ay ku dhufanaysaa css iyo javascript. saan hore u sheegnayba bootstrap wuxuu ka kooban yahay css iyo javascript. that's it. waa wax lagu diyaariyay oo diyaar ku ah. so hal file oo css ah oo la yidhaahdo bootstrap.min waxaan meesha ku qoranna waa inta hadda aan ku tusay. calaamadda tilde sign baa la yidhaahdaa. waxay ka dhigan tahay add www root lib folderka la yidhaahdo, bootstrap folderka la yidhaahdo, dist folderka la yidhaahdo oo kaasa balfi isku dhegin okaas. bootstrap.min haddaan furo css ka bootstrap.min waa kaas halkan uu kugu yaalaa bootstrap.min. okay, let's see here. css bootstrap.min. okay, bootstrap.min ma lamaya. okay, halkan waxaan ka bedelayaa idinku haddii xaggan uusan idinku jirin file la yidhaahdo bootstrap.min hadduusan ku jirin oo uu ku jiro bootstrap.css .min kan baa saaraysaa .css ka waa deynaysaa. okay, that's good. next step will be kan hoosoo javascript. don't worry about. so now hadda aan qorro marka wixii aan qori lahayn si aynu u baranno insha allahu tacaala wuxuu yahay bootstrap. so kow waxaan qoraynay waa waxa weeyaan headerkii kore. so baadhiga tagsa gudihiisa header baad leedahay. hore usoo barateen header wuxuu yahay. innaga hadda xoog waxaan saaraynaa bootstrap html ka xoog ma saarino. headerka dhexdiisa waxaad ku salinaysaa galaasaya naafkaasi ayaan dhowr class siin doonaa. classyada aan siin doono naafka ayaa ah bootstrapka aynu u baahannahay. so inaad isha ku haysaan waayo insha allahu tacaala si aad u aragtaan waxaan samaynayno. okay, so before intaana sameynin header maxaad ka kooban tahay. wuxuu ka kooban yahay navigation oo kore oo menu ah. so comment baan sameysanaya. calaamadii commentiga waad garanaysaan. menu main menu. okay, oo nav ah. navka hoostiisa still headerkan ku dhex jiraa asagana comment ayaan sameysanayaa kale. comment kale aan sameysanayaa iyo slide show saddexda labadaas ka koobay. marka hore waxaan sameynaynaa headkii ama main menugii ama navigation baan sameynaynaa. so navka ayaad class siinaysaa. this is now bootstrap. markaan class siiyey calaamadda b baa soo baxday
class ya fara badan baad arkaysaa meeshan. This is all bootstrap. P waa bootstrap. This is all ready. Uu ku sheegayaa intaas oo class oo bootstrap ah ayaa ku diyaar u kule isticmaal. So only waxa u baahan tahay inaad taqaano ama xifdidid magacyada bootstrap ka u horeeya aad baranaysid maanta waxa weeye nav bar oo u sheegaysid hey waxaan rabaa inaan sameeyo nav bar. Okay, nav bar waa noocee hada nav bar that ama dash expand small markuu small yahay expand gare. Okay, I will explain to you waxa laga wado nav bar dash toggleable dash sm markuu small yahay toggle ku samee waaye ayadna ku tusiyaa ilaa wuxuu u qabto ku tuso macna inuu ku sameyn baa laga yahay hadaa hor u arkin. Colorka maxaad ka dhigtaa nav bar dash dark ka dhig. Okay, maxaa kaloon ka dhigaa iyadana textiga background waxaad ka dhigtaa white ka dhig. Okay, backgroundiga bg oo background dhaad waxaad ka dhigtaa danger iga dhig. Okay, I think danger maybe inuu yahay maybe I don't know. Info ka dhig info. I would rather do info. Okay, but intaas hadda aan isla fiirino. hadda haddaan rabnaan gareeyo ma soo baxayo maxaa yeelay render bariga ayaa maqan. So headerkan hoostiisa iyo render bariga aan iska sameyno si ayna aan website-keenu inoogu ogolaado inaan rangayo. So headerkan hoostiisa waxaad dhahdaa div class baad siinaysaa la yidhaahdo main oo u sheegaysa this is my main class. Afan role meesha classka role ku bedel role equal main classkiisa waxaad siinaysaa container fluid laba container baa jirta. Container geesaha halfka ah haddaan ku tusiyaa iyo container buuxa mid kastana haddaan ku tusiyaa at render body oo aad soo baratay galaasadii hore ayaan ku qorayaa. So waxaad dhahdaa debug start without debugging bal ku dhufo inteena shaqada sii gelin. waxaan jeclahay inaad waxaan sameynaya kolba aan tusaale ahaan idin tuso insha allahu tacaala si aad u aragtiin. So far hadda dhowr class baa durba aragtay. dhowrka class durba xifdiskoodu inaad runtii maalin hal ku xifdis way adag tahay laakiin waxaa muhiim ah inaad ogaatid aragtid inay jiraan waxay qabtaan garatid hadhowna meesha laga soo helo aad garanaysid. taasaa muhiim ah. kuwan iska xirayaa maadaama aanan u baahnayn hadda aysan waqti inooga bedelin. Okay, so background iga soo baxay aan geliyay ee css ka aan gelinay. This is the background. Welcome. Calaamada greenka dheer ee liiqa kor ah waa menu weyn oo hadda samaysmaya. Tusaale ahaan hadda haddaan ka qaado waxaan rabaa inaan tuso haddaan sawir waxaan ka qaado hadda meeshaan ku qoro dhammaantood aan delete gareeyo oo aan refresh marka ku noqo kan ku noqo oo refresh dheh wuxuu tagayaa fiiri it's all gone wuu tagay. Okay, waxaan sameynayaa marka hal baan u soo celinayaa. Let's see here. bg info gaan ka saarayaa. Okay, haddaan refresh dhaho waa soo noqday laakiin weli wax ma aragti maxaa yeelay wax color ma wato. haddii aan ku daro bg info kan containerkana aan dhaho container ka dhow aan ku tusayaa. don't worry dhow ku tusayaa waxa uu qabto ama haddaba aan ku tuso maxaa dhow kugu waxaanayaa hh baan ku qorayaa halkaas refresh dheh. Okay, uu soo noqday hh-taydii saad u aragtid geeskanay u dhowdahay manaha derbigan ilaa derbiga kale wax u dhexeeya waa yaryahay. waa markaan isticmaalayo container fluid. haddaan isticmaalo container bes on fluid ka jaro fiir waxa dhacaa halkan uu imaanaya hh xaggana usoo durkaysaa laba isha ku hay halkan imaata ma aragtaa. So container kaligiis geesaha labada gees uu kasoo durkaya website-ka dhexda iskugu imaanaya dheer buu noqonaya geeskana kacab geeskana kacab. haddaad dhahdo fluidna dhammaan screenka dhan buu wada qaadanaya marka innaga waxaan rabnaa inuu screenka dhan wada qaadato.
okay intaa waa la fahmay baan filayaa. Hadda markaan hawsheeda sii bilowdo, okay naafkii waad samaysay laakiin waxba kuma jiraan. Dhexda ka gal, dhexda kasii gal. Markaas dhexda markaad ka gashid waxaan rabaa inaan sameeyo div. Marka aan geliyo class la yidhaahdo container oo hadda aad soo baratay. Okay, containerkaasi muxuu qabanaya, muxuu yahay? wax yar baan rabaa marka inaan idin tuso idinkoo raalli ah. Start without the projectiga aad qoraysiin iyo markasta kaan sameynayna inaan isbarbar dhigo si wax aan rabo inaan sameeyo aad u garataan oo isha aad ugu sii haysaan. maxaa yeelay de wixii markii aad isha gelinaysid ama aad aragtid waxaad rabtid inaad sameyso wuxuu yahay baad yaad garan kartaa waxaad sameyn doontid. Marka projectiga aan sameyn doono waa kan isaga oo dhammaystiran. Waa sidan saad u aragtiinba. Menuga kore dheer waa naafkii. Divka aan sameynayo waa waxan hadda loogadan iyo homekan waxa ku dhex jiray saddexdaa afartaa shay iyo yaan div gelin doonaa. Slide showgan aan sameyn doonaa. weliba slide showgan wuxuu ku dhex jiraa nav barki. ka bacdi ayaan marka intaan dhamaynaan imaan doonaa render bardigan iyo waxyaabahan oo aan sameyn doonaa alaabtan aan sameyn doonaa. About pagekan waa sameyn doonaa. waa kuwan sawiraanta idin dhahay soo download gareysta yararka waa kuwan. ka bacdi contact hadaan tago waa contact informationkaada, emailka nagala soo xiriir, address nagala soo xiriir, buuxi magacaada, send waxaan ku rahday meesha aan ku naalo Columbus Ohio. Projectigana full ayaad qori doontaa. Marka it's really big project, wax fudud maaha. insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaad aad ila socotaan. sawiraantan baa un kisto inan haysanin. sawiraantana saan idin sheegayba any sawir aad heli kartaan baa isticmaali kartaan. muhiim maaha runtii inaad kaygan isticmaashaan insha Allah ta'ala. Okay, back to here. So hadda right now halkan aan joogaa. hht aan iska tirtiro aan baahni. Containerkan aan sameeyey. Containerkan dhexdiisa ayaa waxaan rabaa inaan ku sameeyo loogadan. saad u jeedayba loogadan aad haysato, loogadan ayaan rabaa inaan sameeyo. So to do that dhexda ayaa waxaan ku sameynaya wax la yidhaahdo a waa anchor tag waa soo baratay. Dani pound ka saar /home/index ayaan leeyahay. waxaan ku qorayaa home. Okay, no home ka dhaaf cafwan. dhexda kasii gal, dhexda ka gal. di baad dhexda kasii galaysaa. marka dhexda kasii gashid dani class ayaad siinaysaa. classka siinaysa waxaa weeye ood leedahay waa navbar dash brand. waa logo. navbar dash brand waxay qaabilsan tahay inay loogada far waaweyn ka dhigto, qaab khatara ka dhigto. Alright, intaa markaad samaysid then sawir ayaad soo jiidaysaa. sawirkaasi waa qaybtii waxaad galaysaa ahayd image. logo ayaad soo raadinaysaa. adiga haddaad haysanin saan ku sheegayba looga soo daydayo online ka soo hel, magaca looga u bixi ama waxaad doonto u bixi. sawir un adigu looga ka rabtid halkan kusoo jiid. muhiim maaha hadda saan kuu sheegay inaad aniga raacdid. Okay, bal refresh save gare. ku noqo browserkani refresh dheh. okay, loogadii waa soo gashay. masha Allah, website-ka waa qurux buu kusoo bixi doonaa mar dhow. Alright, loogadan lafteeda haddaad rabtid inaad heshid, haddaad tagtid Google ood ku qortid developer logo hadaad ku qortid oo image-da tagtid meelahan full stack mandhaha full stack meehid logo meelahan ay ku jirtay. I think mid aan isticmaalayo meelahan ka soo helay. waxa meesha ka buuxa mid kamid iska qaado. muhiim maaha inaad kan oo kale hadda waa good circle-ka ah. kan hadda oo kale waa good, kan hadda waa good muxuma. marka it was somewhere here. Okay, loogadii ayaan geliyey. loogada kastoo way yar weyn tahay baan filayaa. Laakiin I think it's like I like it. weyninkan ku rabaa soo saasan ku daysanaya ma bedelayay. hadda arti lacala inaad yaraysid oo aadan sawirka weyn ka helin waxaad siinaysaa oo kaliya style baad halkan ku qoraysaa. Width baad siinaysaa. max height oo kale ay tegi karto waxaad ka dhigaysaa 100 pixels. max widthka ay tegi kartana waxaad ka dhigaysaa 100 pixels.
inta bas sameynaysaa. Okay, haddaan dab noqdon refresh dhaho intaas way yaraanaysaa marka wax yaray noqonaysaa. Check. way yaraatay marka I think intaasaan ku daynaya. Okay, waxaan rabaa marka inaan sameeyo dhowr shay. haddii aan kan ku noqdo oon soo jiido oo banaanka u saaro ka bacdina aan yareeyo oo wax yar ka dhigo wax yar waxaa u fiirsataan waxa dhici doona. waan yareynayaa website-kayga waan yareynayaa markuu meel gaadho menugii wuu qarsoomay. markuu gaadho qaybta mobileka oo kale ama size-ka mobileka loo yaqaano wuu qarsoomay menugin. wax yar haddaan jiido yari wuu soo baxayaa. haddaan yareeyo wax yar wuu qarsoomaya. markuu qarsoomo calaamadana badhan baa soo baxay. badhanka haddaan ku dhufto menugii waa soo baxay. haddaan ku dhufto haddana wuu qarsoomay. haddaan ku dhufto wuu soo baxay. haddaan ku dhufto wuu qarsoomay. Okay, saytaa ku dhacday. waxay ku dhacday waxaa yidhi horta navbarkan waa expand small. markii small uu ka baxo weynow. navbarka waa inuu noqdo taggable. markuu small yahay waa inuu taggable yahay. So that means markuu small yahay kow waa inuu expand noqdaa oo saa yahay. waa inuu taggable yahay. marka lagu dhuftana uu qarsoomo. markuu dhan soo baxo. markii uu small ka baxan waa inuu expand ho weynaado maarta. so ereygaas ayay qabtay laakiin badhankan ma hayso. so hadda I have to do badhanka inaan sameeyo waaye. so badhankaas inaan sameyno waaye. anchor tagga hoostiisa tagaysaa right below it. hadda button 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 tab baad leedahay dhexda kasii galaysaa. buttonkan aan class baan siinaynaa. tirtirin caret signka ha tirtirin. waxaad leedahay navbar dash toggler oo ah badhankii sameynay on and after oo hore uga bax. waxaad leedahay type waa equal button. badhanka wuxuu yahay saddex nooc button iyo reset iyo submit. mid kasta insha allah waad baran doontaa. like hadda button ka dhig. okay, data dash waxaad leedahay toggle. data togglekiisa waxaad ka dhigtaa collapse. waa inuu collapse garoobo markii lagu dhufto. banaanka ooga bax. data dash target wixii uu collapse gareyn lahaa waana u sheegtid. waa class la yidhaahdo navbar dash collapse la yidhaahdo oon weli aynan sameynin. waan sameyn doonaa insha allah, don't worry. okay, think intaa waad ku daynaysaa badhankaas. waxba gudihiisaad galaysaa badhanka. markaad gasho gudihiisa waxaad sameynaysaa icon baad spam baad sameynaysaa. spamka waxaa weeyaan iconkii soo baxay. class ayaad siinaysaa. classkaas waxaad leedahay navbar dash toggler icon ayaad siinaysaa. bal intaas hadda inuu shaqeeyay in kale aan fiirino. intaana sameynin kaygii isaga ha dib ugu ceshada meeshaas. kana soo qaasa usoo bixi yaree soo jiid markaas. horta refresh dheh to make sure inuu wixii aan sameynay uu aqbalo. save gareedan refresh dheh then bal soo jiid oo saa usoo yaree. okay, uu soo baxay. hadda haddaan ku dhufto ma shaqeynayo maxaa yeelay weli waxbaa ka dhiman. haddaan dheereeyo waa qarsoomaya. soo jiid qarsoomaya maarata. it's working fine. so good job. okay, now back to our kan sababta u shaqeyn waxaa weeye data targetka marka lagu dhufto wixii uu soo saari lahaa oo navbar collapsiga ma samaysna. so badhankan hoostiisa tegaysa. hadda class cusub baad sameynaysaa. marka diff dheh horta ka bilow enter dheh classii diffkan badan iyo iskaga ka khaldamin. navkaas hagaas xidhitaankiisa yaallaa. diffkan kore oo containerka kiisi waa kan. gudihiisaan ku sameynayna waxyaabaha markaa waa a iyo button iyo diff cusub. waa saddex shay hadda waxaan wada waxba ha ku wareerin ma garatay. so classkii isaga ahaa ee xaggaa kugu qoraa soo copy garayso. classkii halkan ku paste garee. hadda wuxuu ogyahay marka badhankii meesha waxa uu xidhaya uu furayuu ogyahay. so waxaan leeyahay marka haddana space dheh collapse marka uu d dash small yahay sm d dash sm dash inline soo geli. okay, wixii la collapse garin hayay. waxaad nooga dhigtaa flex nooga dhig. flexku waa idin sharaxi doonaa wuxuu qabto.
flex kaasi waxaad haysaa dash sm markuu small yahay dash rowga reverse okay gudaha kasii gal ul baa sameynaysaa oo ahayd unordered list ul ka u horeeya class baad siinaysaa classka waa navbar dash nav baad leedahay space baad leedahay waad ka durkaysaa then waxaad leedahay flex dash grow dash 1 okay li-gan isagaa kuu sameeyey so li-gan ayaad class cusub siinaysaa laftiisu li-ga waxaan siinaa nav dash item baad haysaa item li-ga dhexda kasii gal a oo anchor taaga ayaad sameynaysaa a-ga waxaad leedahay /home/index waxba ka welin waxay tahay waxaas home because controllerkay weli kamayna sheekeynin basically waxaad u sheegaysaa buttonkan marka lagu dhufto menugan meesha filekiisu yaalla home oo ah viewga haddaad tagtid home indexkaas ayaad u sheegaysaa so homena ku qor class ayaan siinayaa anchor taagan waxaan leeyahay nav bar dash nav dash link oo ah linkigii navka I think intaasaa nagaga filan baan filayaa inaan hadda hal menu sameyno so let me refresh it halkan inay igu soo baxda waaye homekaasi haddaan ku dhufto homekin bay tegaysaa meel kale ma tegayso haddaan soo yareeyo waa inay qarsoonto markii aan meesha imaado waa qarsoontay haddaan ku dhufto saaxiibka waa inuu home itusaa haddaan ku dhufto waa inuu qariyaa there you go it's working fine so dhowr shay aa muhiim baa inaan isdul istaagno kow intan bal aan sharaxo waxaan sameynay nav good oo ah midkan buluuga oo ka gees ilaa ka gees tegaya tag backgrounddiis waxaan ka dhignay info waxaad ka dhigan kartaa warning oo ah yellow waad ka dhigi kartaa aday ku jirtaa haddaad jeceshahay inaad kalarada bedesho refresh deh warning buu isku bedelayaa bag hadda greenkan wuxuu isku bedelayaa color kale maaragta waxaad ka dhigi kartaa danger oo ah red backgroundiga adaa xukuma refresh deh see that adaa xukuma really so inaga keeni inoogu daa danger I mean muxuu ahaa info success baa jira iyadana oo ah cagaar bg oo dhan intaasoo kale bay wataa bg dash meeshaad ku aragto lixdaa kale iska ogow inaad ogaatid success oo cagaar ah I think I like the cagaar good it's really good indho fiican yahay so I might keep with the cagaar I don't know I like cagaar so ayaan sameynay then waxaan sameynay container yar containerkaasi waa midkan la gelinayo loogada iyo menugeyga ay galayso saa u jiido oo inta oo kanaan sameynay ilaa halka gaadhayo then container markaan sameynay waxaan ku sameynay loogadeeni aan gelinay loogadeeni markaan gelinay waxaan siinay sizekeeda 100% nav classkaas oo bootstrap aan siinay classka wuxuu u taraa format aadan adu garanaynin wuxuu sameeyaa quruxayo ka dhigaa so loogadaadi hadda say u egtahay waka waxba kuma css ma sameynin and it looks beautiful so classka navbar brand ayaa u sameeyey button ayaan sameynay la yidhaha toggler oo markii uu collapse noqdo classka la yidhaahdo navbar collapse oo kana oo menugooda ku dhex jiraan xukuma oo markii lagu dhufto ay small noqoto goormuu shaqeeyaa small markay tahay small right here navbar expand small toggle small kaasaa qabanay marka uu yahay small ayaa uu kala weynanayaa marka uu weyn yahayna ma arkaysid then navbarkan ayaan waxaan idhi waa collapse garoobaysaa markuu small yahay inline baad ka dhigaysaa flexku waxaa waaye marka la jiidayo fiiri saa loo jiidayo screenka wax flickering ama boodboodaya ma arkaysid manaha very smooth waaye very smooth so smoothkaas sawirka xitaa maarata si uu kala ballaaranayo tartiib adoo xitaa wax pixels iyo wax kala maaragtay flickering ma laha ama maxay dhihi jireen shucaac ma galayo sawirkii iyo wixii marka xitaa textigaada iyo background wax shucaac ah ama khafiifa ma galayo hadduu yaraadana waa isku mid hadduu weynaana isku mid that is what's called flex and grow manaha inuu mar kasta oo la jiidaba uu hal pixel ku darsamo oo uu stretch sameeyo
without losing the resolution ma garatay I think intaasaa nagaga filan inaan idin sharaxo navbar indhihina idin macalina practice badan bay u baahan tahay dib haddaan u noqdo cashirkeeni I think hadda kan waan iska dib baan idin u celinayaa soo kii hore caadigaa baan ku celinayaa maadaama hadda aad barateen wuxuu ka kooban yahay soo halkaa ii dhig so ken haddaan tagno waxaa 1 2 3 xabaa ku meesha ku qoray privacy u baahan laakiin labadaa kale inaan kusoo daro waayo labadaa kale all I need to do is UL kan diffkan hadda ku jirtid navbar collapse-ga hal UL baa ku jira UL ka isagaan baa soo copy garanaysaa control C hoostiisan baa tagaysaa laba jeer ayaad paste ku dhahaysaa intaadan paste ku dhihin horta halkan ka bedel kan waxaad ku qortaa about عفوا about oo eeda about kana waxaad ka dhigtaa about hadana hoosteeda UL kala tag paste ku dheh hadada contact and contact very good waad samaysay very easy way so refresh dheh ku noqo kaadi soo galay home about contact let's see why عفوا وانا خلدي ما ahayn inaan UL kan UL inaan LI bis copy garanay UL ka inaan copy garanay rally hada oo dib u noqo control Z UL ka dhexdiisa LI ku jirta ayaa la copy garanay UL ka lama taabanin so LI gaas ayaad dhexdiisa laba jeer ku base garanaysaa so kan baad ku bedelaysaa about kana contact and then kan contact kana about rally hada so UL ka taaban LI ku dhex jiray unbaad laba jeer copy garanaysaa hoostiisa okay haddaan hadda refresh dhaho waxaan kala fogaaday baan la yaabay so inay isku dhawaadaan waaye okay very good beautiful kuwan ma jiraan saad aragtaanba home contact haddaan tago homeka contact ma haysti home about ma haysti inaan kusoo daro waayo saan ugu soo daraa waan u baahannahay fil mustaqbal controllerkaa tegaysaa controllerka waa back endigi waxbaa ka wel insha allah mar baynu isfaan uga hadli doonaa home baad tegaysaa oo aad ku dhufanaysaa laba jeer control home hoos baad imaanaysaa waxaad arki doontaa line 21 ilaa iyo line 24 public action result index calaamada isku xidhan qowsayna bil furan bil xidhan return intan way isleeyihiin waa page intaa markasta usoo copy garay hal mar meel kale ha aadin kuwa kor ha aadin kuwan hoos aadin intaa soo copy garay kaliya indexka ah privacy ma ahaya waa index qowsaynkan u horeeya ee bishan ama mustache-kan ama shaarubahan u dambeeya ee line 24 hortiisa ku dhufo laba jeer dhag kasi meel cidlaa imow control V dheh control V markaa dhahdo indexkan calaamad reer ayuu yeelan doonaa wuxuu ku leeyahay index baa jiray hore adna index baa inaad samaysan rabtaa ma shaqaynayso dhib male kanaad ku dhufanaysaa markuu highlight ku noqdo waxaad ku qoraysaa contact very simple that's all contact wuu ka baxayaa reerkii haddana kan hadda aad samaysay contactiga calaamadiisa mustache-ka horteeda imo mar labaad dhag dheh control V kuu dheh mid kale haddana kan waxaad dhahdaa about hoostan hoose wax reera ma jiro xaggana wax reer ma jiro saddex marka waxaad haysataa page index oo kuu qoraa iyo laba adoo aad samaysay labadan aad samaysay ayaan rabnaa inay filekoodii xagga soo fadhiistaan weli ma haysano so waxaan ku dhufanayaa kan ay dhahaan contact right click dheh waxaad dhahaysaa add view marka add view dhahdo magacii buu kuu sameynayaa add baad leedahay xaggan isha ku hay hoose ee homekaada ah wuu soo fadhiisan doonaa contactigii page-kii macnaha contactigii maadaama inaga maqnaa sidan ayaa loogu daraa page-ka cusub markii aad rabtid inaad page cusub ku dirto ASP.NET MVC cashirkeena insha allah xiga ama projectiga xiga ee aan really ku baranayno AMVC.core waliba 3.0 iyo wixii ka dambeeyay ayaan ku baran doonaa completely from A to Z qaabka loo program gareeyo ama loo isticmaalo ama loo design gareeyo ASP.NET Core laakiin hadda focuskeenu waa uun HTML iyo CSS soo baranay iyo allah musta'aan wixii la dhihi jiray bootstrap marka inaan pages-ka ku darro ba halkan nala imaatay muhiimadeenu ma ahayn inaan hadda kuwan aan barano waxa waa C# luqadda dhan C# baa lagu qoray
waad baran doontaan lafteedu. It's gonna take a little while inuu sameeyo waxay dhahaan scaffolding ama page generation. Visual Studio ay sameynaya waxaas, oo halkan soo fadhiisan doonaa. Uu sameeyey contact wuu soo noqday, page-kina wuu furmay contact. Halkan waxa igu qoran contact. Ku noqo controller-kii about sidoo kale samee, right click about, add ay badaysaa. Okay, waxay iska sug. Okay, and waa kuu soo galay. Good. Kor u yar bax projectiga view-gan isku xidh, controller-kan isku xidh. Bootstrap-kaas kore oo magaca dash practice right click dheh, then build waxa waaye hey pages cusub baan ku daray, build gare dhinacan hooste waa inuu noqdo succeeded, which means waa shaqeeyay. So haddaan ku noqdo halkii oon refresh dhaho, haddaan hadda ku dhufto about oo soo baxay about page-kii. Haddaan contact waa soo baxay contact. Waa eber waxba kuma jiraan hadda, waana ka shaqeyn doonaa. So step-keena hadda xiga waxaa waaye inaan sawiraantan ka shaqeyno. Haddii sawiraantan inaan ka shaqeyno, then aan cashirka labaad aan ka shaqeyno qaybtan, cashirka saddexaadna aan contact about-ka. Marka ilaa 3 cashir buu noqon doonaa Bootstrap. Fadlan iska dulqaata hadduu idinku dheeraado. Marka hadda slide show aan ka shaqeyno, waxaan tegayaa iska xidh contact-gan, iska xidh kan kale, iska xidh controller-kan, layout-ka waad tegaysaa. Layout-kii nav ayuu ka koobnaa, container baa ku xigay. Containerkaasi waad iska xidhaysaa, saasaad u xidhaysaa. Markaad containerkaas ka xidhid oo saa noqdo, hoostiisana commentiga aan sameeyey ee ku qoran slide show hoosteedaad imaanaysaa. waxaad sameynaysaa div cusub, div dhexdaad ka gelaysaa divkaas. Markaad dhexda ka gashid, class ayaad sameynaysaa la yidhaahdo slider id. id waa capital ya, slider id. st waa small. Afwan class miyaan ku uri, classka baryahan iga batay. Control z waxaad siinaysaa id, slider id oo id capital tahay. Then class baad siinaysaa. Maxay Bootstrap waa wada class socda isaga dhanba, marka classada xifdintooda baad u baahan tahay. Runtii cilmisaa usii weyn meesha kuma jiro. Hadda carousel weeye, waana slide, space baa u dhexaysiinaysaa. Carousel slide weeye. Okay, then waxaad siinaysaa haldo data that right. Okay, waa carousel saa ku dooro automatically. Styleka waxaad leedahay widthkiisu waa 100% baad ka dhigaysaa 100%. Semicolon margin tab dash tab waxaad leedahay -1 pixels. Okay, weli haddaan hadda refresh dhaho wax soo baxay ma jiro, waxba saas ma arkaysiin. haddaan saa dhaho, marka waxba hadda saas ma jiro. So we continue until sawiraanta aan gelin waxba saas la arki maayo. Inside-ka divkiisa inside-kiisaan galayaa. Inside-kiisa markaan galo ayaa waxaad leedahay ol oo ah order list. Unordered baa soo baratay, ol hadda waa order list. Order list ol ka horeeya waxaad siinaysaa class. Classkiisa waxaad leedahay waa carousel. Okay, dash indicators. Spelling-ka iga ilaali. L ayadan gudaha ah ayaa waxaad siinaysaa data dash target, and then waxaad siinaysaa id-gaada slide id oo ahaa midkaad kor kusoo sheegtay, slide id. And then horaad u soconaysaa waxaad leedahay data that slide dash 2 saa kusoo baxaya 0. And then class ayaad siinaysaa la yidhaahdo active ayaad siinaysaa. waad soo copy garaynaysaa halkan, 2 jeer ayaad paste dhahaysaa.
meeshan zeerada ka labaad hal ku bedel, ka saddexaadna laba ku bedel. Active-kan class-kan active-ka la yidhaahdo labada hoose oo dhan ka saar, uma baahna iyagu, ka saar. halka kor waa inuu active lahaado. Okay, intaa markaa samaysay haddaad refresh dhahdid, mid kasta waa idin sharixi doonaa insha allah, laakiin horta aan qoro. weli wax quman ma soo gelayaan. waxaa soo galay wax yar 3 shay ah oo saas dhag calaamadahaas. That is waxa uu sameeyey li-gan. wax hadda aan qoray 3daa calaamad baad samaysay. macnaha waa slide targetka, waa slide id-gaas 0 iyo 1 iyo 2 aan baahnahay. ka koowaad active ah, kuwa kale active maaha waaye. meeshuu ka bilaabanaya ol-kan xidhitaankiisa hoose banaankiisa tag, diffkaad weli ku jirtaa, slide-ka la socoyaa, space u samayso, diff cusub samee, dhexda ka gal diffka cusub, xagga hoose dhexda markaad ka jirto class baad siinaysaa. classka waxaad ka dhigaysaa carousel dash inner dash inner ayaad dhahaysaa. Okay, dhexda ayaad ka gelaysaa, diff cusub baad samaynaysaa, diffka dhexdaad kasii gelaysaa, class baad samaynaysaa haddana la yidhaahdo carousel dash item ka koowaad active baad leedahay. dhexdiisa ayaa sawirkii keenaysaa, sawiraantii. so root ka tag, aniga waxaan soo raadinayaa slide 1kayga, slide 1 waa kan, soo jiidkay halka dhakusi dhexda ah, waa dhexdan ka wadaa kan ay ku qoranta itemka. marka intaas sameeyo, class baan siinaya, waxaa sawirku waa weyn yahay marka aniga inuu iga weynaado. classka waxaan ka dhigayaa d dash block. okay, widthka 100%, 100% baan ka dhigayaa. alright, bal pagekeeni ku noqo oo refresh dha markaas and see what happened. masha allah, sawir dhac qurux badan baa soo baxay. kuwa kale weli ma jiraan, laakiin sawirkii waa isku ballaariyay saa oo jeedaan. intan balan wax yar sharadu istaaga markaas. ka koowaad waxaa weeye horto diffkan isla socdo dhan waa ka gees slide id-ga wato, waxa weeyaan waa laga soo bilaabo cagaarka ilaa meesha madowga, intaas waaye. okay, sawirkan waa sawirkii aan geliyay. 3dan dhibcood waxa ii sameeyey waxa weeyaan diffkii labaad ee ahaa ol-kaas oo order list ah, oo ah 3daa shay 0 1 2 3 ayaa mid kasta wuxuu u taagan yahay sawir. ka koowaad wuxuu u taagan yahay kan koowaad ee sawirka, ka labaad weli mayna samaynin, ka saddexaadna weli mayna samaynin. okay, good. margin tab-kan ayaan rabay inaan tuso waxa aan ka waday, macnaha mina fahmin baan filayaa. so haddaan tirtiro margin tab oo aan markaasi refresh dhaho, waxaad u jeedi doontaan meeshan inay cagaar yar ka muuqan doono ama space yar oo u dhexeeya menugigii kore iyo kan. ishu ma qaban karto, laakiin space yar baa u dhexeeya, marka spacekaasaan ku tirtirayay. marka muhiim maaha inaad gelisid, waa iska dhaafi kartaa. marka anigu waan u daysanayaa si aan spaceka yarka cad aanan u arkin. okay, so now waxaad samaysay 3 uli, laakiin hal sawir baa siisay. marka sawir kasta kiisa ku xiga waana siisay. hadda ka koowaad baan siinay, ka labaad waana siisay. marka diffkan isaga ah, diffkan ayaan soo copy garaynayaa. diffkan isla waxaan ku jiraa carousel innerkii la socdaa, innerkii baan ku jiraa, diffkii ku jira baan soo copy innerka kiisan kala ha gaarin, kaas weeye. hoostiisa tag, ku paste garay 1 time, hoostiisa tag, ku paste garay 1 time. sawirkan iska tirtir, uma baahnid. ma tirtirin, waad tirtiri doontaa, laakiin uma baahno. horta kow active ka tir, ka labaad, ka saddexaadna active, ka saddexaadna active ka besa tir, wax kala ha tirin, active ka tir. meeshan aad ku qoran tahay pg kaas tirtir, calaamadda / ka tirtir, / dheh, sawiraanta o dhan baa kuusoo baxaya. slide 3 baan dooranayaa. kan sidoo kale tirtir intaas, calaamadda / ka gaadh, iyada lafteeda dib usoo celi, then waxaa kuusoo baxay sawiraantii o dhan. slide 4 baan iska dooranaya haddaan doono. I don't care, orderku muhiim maaha 1 2 3, laakiin sawirku muhiim maaha. okay, so haddii aan markaa refresh iraahdo, aan sidaa yiraahdo,
ii soo baxeen sawiraantii, laakiin weli ma dhaqaaqayaan. Waxaa ka dhiman inuu dhaqdhaqaaqo. Sawiraantii waa igu jiraan, waan wadayna insha allah. So qaybtii carouselka wax yar ay nooga dhiman. Haddaan ku noqdo kaygii isaga ahaa, calaamadda waxaad arkayseen haddaan ku dhufto xagga aadayso, haddaan ku dhuftana xagga ay aadaysay, ma aragtaa? Taasaa inaga maqan. So taasaan inoo sameeyo. Okay, so waxaad sameynaysaa kan oo ay ku qoran tahay diffkan weyn ee innerka ah, carousel innerka ah, oo sawiraanta saddexda ay ku jiraan. Diffkiisa xidhitaankiisa banaankiisa imow. Banaankiisa markaa imaato waxaad leedahay a oo anchor taaga, tab, id-ga hrefkiisa waxaad ka dhigaysaa pound slide id, slide oo kii isaga ahaa id, slider id. Okay, dhexdaad kasii galaysaa, intaad ka tirtid waxa ku qoran. Before we do that, horta class aan siino. Class waxaan leenahay waa carousel dash control dash previous. Way kan horta waa previous. hrefkiisa waan siinay. Rollkiisu waa button, roll waa button, button. Okay, roll markuu button yahay, data slide-ka waxaan leenahay waa preview data slide, data slide waa preview aan leenahay, prev ama next afwan, maadaama kii hore yahay may preview de, maadaama kii hore previous. Dhexdiisaad galaysaa, spam ayaad siinaysaa. Spamka waa iska diff adigu loogu talagalay in adigu lagu iconadii waxa lagu sameeyo. Class baad siinaysaa carousel dash control that next item. Hadhihin waxaad leedahay previous item, previous icon afwan, aerial hidden true ka dhig, aerial hidden true. Spamkan hoostiisa tag, isagana spam kala samee. Isagana waxaad dhahdaa class src oo screen readerka only, and waxaad dhahaysaa previous. Okay, bal intaas save garee, refresh dheh. waa soo galay ma aragtaa calaamaddeena. haddaan dib u noqdo markaas, see that it's working masha allah. ma aragtaa masha allah, waa shaqeynayaa. hadduu wax kaa khaldamo spelling iska sax, id-gan iska fiiri, make sure id-ga inuu id-ga koro yahay, make sure id-yadan inay sax yihiin, make sure in class-yadan aadan waxba spelling kasta khaldan. I mean, make sure inaad wax walba iska saxdo. Hadda waxaa inoo dhiman kii dambe inaan sameyno. Kii dambe kan baan copy garanaynaa, waa isku mid. Hoostiisaan paste ku dhahaynaa. Meel alla meeshii preview ahayd, next baan dhahaynaa. wax kale ma jiro wagaag, next, next. Smart. Kan preview, next. maarta kana dhan next. waa intaaba waxna kala ma jiro. meesha hore iyadana next, next. Slide next. This one next. I think it's all set. Okay, refresh deh. Kii kalena waa inuu xaggan iga soo baxo laftiga ah. ma soo bixin waay. Control next waan sameeyey pt1. . 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 .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
lighter id waa haystaa data slide next spamkiisa waa control hidden true okay okay refresh okay kii kale ma soo bixin somehow caddiinkan waa qaranay garan maayo inuu soo baxaan filayaa caddiinkan qaranay lakin that is the maxaan ku dhahdaay waa u diidan yahay lakin nextigan galbada isku day makanoo next yahay warmiya okay wuu soo baxay I think next week diidaan filayaa okay I think cashirka waa dheeraaday hal saac uu marayaa wax yar dhiman insha allahu tacaala waan dhamaynay slidekeni waxaa hadda inoo dhiman insha allah inaan bilowno waxa weeyaan our indexkeni marka layoutki waan ka dhamaanay furirka inoo horay cafwa furirkaasaan ku shaqayn doonaa so intaanu cashirkeena dambe isku arkayno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu